ورحمة الله وبركاته. أنا جو حالي دا سافي عبد الله وحن كمدة وجواسكو ضدك كشقينا وحنو ملاينا 2018 هاللي قري 2018 وحي كدن بي مركز محمد عبد دولديس عايد علي جير دولديس مركز يسوق شيء وحاي معايا هذا اندياش هرو وهال بدلي كم دنبولا كان سي لغو كاني أنا كم منقانا بور كي أصل قرال كيسة بور كدن بي أنا كو عم أركي جيرني قف بور أي قران لكن قف بور كدن بي وين جاي ماركن معايا دولد waxay nalaadahay anaka waxaan nahay maxay heeday goswakas laakiin MD-ga manyawe waa goswaka teeda kale dad markii la bixina waa in official communication ay laadaan waa in loo sheegay in la bixina laakiin 5 bilood ay shibna kala dhahay mushaaran sugayni deynaan qaadanay markay deynta ay nagu badatay kabacdi ayaa maxay heeday dhaadheeta wax yar oo la xushay oo qabalnimo loo xushay ayaa mushaar la sii anaka waxaan arkaynaa in qabalnimo noo dilaayo in political revenge noo dilaayo oo nagala argoosanayaan warkayna ku jiri dadka badan la bixi waa dadka ka soo jeeda tarbaje iyo wajahista maxaa yeelay inay tarbaje iyo wajahista dadka la bixi ay noqdaan waxaan u qaadanay inay argoos siyaasadeed tahay oo ma aragtay dadka Dr. Xasan Gilix in la bixi ayaan arkayna waxaan rabnaa anaka dawladda jiir inay maarta xaqayna nasiisa hatta hadayna bixinaysa shantayna bilood inayna siiyaan oo official nagu bixiyaan ma ahaan waysi ma aragtay anaka waxaan ka xigaynaa ina maxkamad waadan ka horo waana noo socotaa maxkamadana waa aadayna maandamaanda oo saan u daynamayna wax Allah wixin kala karna awoodaynan karayna alaykum aniga magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Barre waxaan ahay waxa shaqada aan imaaday meeshan 2016 up to date waa ka shaqeynaa in balan baanahay reewajaro maalno weel aqaanan hadhaadho girift meel baan ku imaaday waa ogtiin reewajaro waxaan in sheegana ninkii mishiima hagaajinaa meel walba tagaanahay 6 bilood ka dambe ilmeey iskuul lagu soo fiijin ninkan waa diid mishaar inay siiyo waraaq official la misiin 2016 intaan dhacdo meeshan aan joogay meel kale uu ka ma qaana markan waxaan ka rabnaa dawladda county government hadaa in bixisi waa lis bixin jiray kaasoo waa la bixin jiray xaqayna si walaalo idoo dhiblaan anaka reewajeer dhibaato weyn baan soo food saartay dhibaatada iyadoo dulmi ay soo gashay waxaan aad ugu codsanaynaa gafanaha si bilaadanimada ka baxsanaa noo galay aniga hadda kula hadla gabadhayda aabaad waswaalin geedas ku xirin 27 sano naagtaasaytan way akhrislaan ma haysata aabe saacadan hadda la joogeelay bay igu xirin yadooga aabaad ana waan garab taagan walaalahay oo dhan suuqay anigaas ay suuqay jir qabiilaysi iyo dulmi iyo wixii ka shaqeynay usugo asaga iyo wixii ka shaqeynaa dulmi ay ka shaqeeyaan wajawaaska waxa ka shaqeynaa dulmi ay ka shaqeeyaan anaka ra wajar hadan nahni ma rabna saas wajar waa wajar ifar qabiil kama rabna gaal li muslim wajar in gacanta lis qabsadaan doonayn hadii amankan mudaharaad aan amankan suubanayn abartan ilaa taa nucara adiga noocaasayto inuu soo hadish ama as dadka ula dhaqantay ma wanaagsan Abbas markaas ku raarabtay irid kasta istaagi jirtay baabayaankan ku dhigi jirnay waas waa amust oo indhaa u xirid shoodaada ku buuxsantay hada salaam tawfiiq aniga magacaygu Cabdirasaaq Xasan Gure waxaan ka mid yahay shaqaalaha shirkadda biyaha wajiha Wasco sidaad ogtiin reer wajeer marxaladda ay ku sugantahay wajeer Wasco waxay noqotay goob joog oo qabiilada lagu taageero qabiilada lagu ciribtira oo ficil ka socdo maanta waxa dhacday shaqaale ku dhow 250 ayaa shaqada laga saaray shaqaalii ayaga ahay waxay ka yimaadeen oo u badan laba constituency Tarbaji iyo Wajeer East iyo Wajeer North Wajeer South wax yara ku jiraan waxa weydiirnaa gafana xilka hay annaga ma reer Wajeerta as dhaay oo u gargaara oo maxalla I'm restoring hope to them. Are we different from those guys? Why are you segregating us? We want our rights, we want our due, and we are not begging you. We will continue with this demonstration for the coming 90 days.